السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كسر دوا يوتيوب channel كنا وانيقو فاتوش طبعا شمس ما تنكسر تجي أصحابي حرجين أنا سوا عفمال قبنا وعفمال قبتين هذا هو إنه لو شفت لايك كومنت and share حتى هذا نوع سبتاي السود وكسر إننا قعمة فرن سبسكرايب نوصل بير كمد أهان شاي وإنه مهم إن أصحابي ما نسوا حاربينا قصحنون بدنا بريهم بل سوشيال ميديا كده حسعتي قبر ولا شيء أنا لا ونحرسته أنت اللي فرح معي هدنا للدلي إنا كهلا طبعا ما وح وجوب معها أو هاد قبر أسوق رسائل الله ونحرسته ووح سندنا دم سومالي دقيق سومالي دكتورا سائد وسع عن الشعب حي نرتو حاجة الله الله ونحرسته كعنك حق دلنا بهذا الشيء مركا نمك وحتى أجنا محنا قد مع سنتين حداد قبلها دحداد شيطان قاضي بلايا كسميسي maxaa u diraysaa nafta maxaa u dhaafinaysaa wallahi billahi waa wax aad looga xumaado weeyaan in hooyo ku dhashay gabadh way kula dhalatay waa guursatay waa dhashay maxaa dhigtay nolosha dhan deer lama kala maarmo saas isugu milanay Soomahan way gabdhaha u luguusin yaa wallahi billahi waxa waaye gabdhuhu nolosha halbowlan weyn bay ka yihiin oo gurigan hooyo joogin guri maaha saa u wada ognahay haddana idinkii baa balaayo wada iyo baas ma fahanti ragga dhanna ma dhigi kari laakiin waa ragga inta xun ee caqliga yar weeyaan ma fahanti marka wallahi gabdhaha idinkana waxaan idin dhihi lahaa ilaahay meel kasta joogtaan ha idin xifdiyo waa aragtaan raggeeni waagii hore oo Soomaali ahayd gabadh diraceeda ninkii saas u go-eeda ninkii saas u taabta boqol geela laga qaadi jiray haddana wala xumeynaya dil baa loogu daray adduunka la dhaafinay way adduunku dhaafinaysaa teeda kale gabadhan Allah u naxariisto waxaan maqlay rag badan bay ahaayeen ayagana haddana kale aan la siyaabay waxay tahay maangaabnimada heerka idinka gaadhay hal nin uu khaldami karaa laba way khaldamaysaa way idinka dhan isku wada madax maskax noqotay hadda aniga iyo Shamse iyo asxaabteena inta kale haddii maanta aan waxaan sameeyay iyagu waxay dhihi karaan waxaan wuxun yahay waxaan dhaaf halkan saas samee laakiin waxa adduunka ugu xun oo wallahi adduunka waxa waaye waxaan dhihi karaa waxa ugu xun waxa waaye in idinka dhan isku raay noqotiin 10 nin ama 8 nin oo isku caqliga xagee laga geeyay laa ilaaha kurida iyagana waxa la dhiig islaam isma qariyo hadda hadii la hayo anigu xog saas u sii weyn kama hayo hadii hadda la qabtay oo sharciga gacantiisa ku jiraan waxaan leeyahay talaabo sharciga laga qaado hadii nimankaasi maqan yihiina waxaan leeyahay ilaahay cadaaladda ha horkeeno gabadhaasna xaqeeda Allah u soo dhiciyo reer bay gabar u ahayd hooyo gabar u ahayd aabay gabar u ahayd walaalkeed bay garabkiisa ahayd wax kasta reer u ahayd marka maanta waa ka dhax qaadeen waxa ka faa'iideen walaahi ma sheegi karo hadda dii la weydiyo la dhaho inta la soo istaajay meel gabadha dishay maxaa ka faa'iiday wuxuu ku sheegay malaha ninkaas ma fahanteen haddana wuxuu go'aansaday inuu nolosha dhaafiyo xaasidnimadu kaga dar yaa hindida faan barata u fiirsanaysan dabaq iska tuurona waa baratan dabaq qof laga tuuray iyo kowani qof mindi lagu dilaa arki jiray qof dabaq laga soo laliyay subhanallah waxaan leeyahay wallahi billahi taala gabdhaha inta xaq darada lagu dilo Allah u naxariisto inta hadda xaq darada lagu haystana Allah ka saaro oo cad dulmiga Allah ka koriyo waxa ay gabadh kama maarantaane ragow isku tashta waxaan dhihi lahaa wallahi waxaan dhamahay waa aada u murugeysanahay gabar kasta xanuun gabar hadii maanta la dhibo mise gabar maanta hadii wax la yeelana gabdhaha dhan dabcan waa isku sibay u xanuunsanayaan ragga damiirka la sidoo kale way xanuunsanayaan kuwa marka dhib ku dhaco soo heesa oo in la garab taagan waa rag kuwa dhaha saas maxaa la sameeyo waa rag kuwan xumeynaya waa rag ma fahanteen marka ragga isku wada mid ma aha qaarka lugooyada wada waxaa leeyahay lugooyada naga daaya heesaas kuma fiicnin laakiin حبا قعكسين دونا إن شاء الله هوينك هداد ديشان عدد كفستان هبلها هويوينك نقول لها هدو تهلكيت كوهيرن مالا كوهيرن اسمها سماها قبل كفسي كداية لباتي كداية وحاواي نقد دافع دبكا والله بالله أنا ورطو وح الله لأيو وحان دوه مكرنيو لكن آد بأوحو ماهي آد waxaan leeyahay ayadan ilaaha u naxariisto warta qofkii ka dhintay maanta iyadu way dhimatay Soomahan gud bay ku jirtaa oo waxay ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxay horgeysteen way haysataa iyada ilaahayna way saarkan Soomaha geerina waa xaq waan loo wada socdaa meeshaas laakiin waxaan ka naxsanahay waalidkeed oo qofkoodiyo aan u xanuunsan oo u dhibtoon oo waxba qabin intuu ka baxay isagoo meeyda loo keenay
طبعا والدنا waa la wada yaqaanaa wallahi ilaahay horta qalbiga u qaboojiyo waxaan dhahaa ma garanaya ilaahay waalidkeed iyo walaalaheed muslimiinta idil qalbiga u qaboojiyo Soomaaliduna waxa weeye dibku markuu hadda dhaco kulligeen waa ka wada damqanaa laakiin aan ka damqana ma xumee meeshii ma wixii isbedel ma laha anaga dhan waa qaylnaa inaga dhan waxaa dhahnaa saas maxaa loo sameeyay halkaas maxaa looga dhacay waa ka wada murugoona oo hadda gabadhaas aan imaan aqoon wiligay ma arkin ma aqoonin ehel maniin faamin maniin qaraabo maniin adana wallahi arintaas markaa maqlay sidii in aan la dhalata camal uga murugooday baan uga naxay marka gabadh kastan waan ogahay in meeshan istaagay ay taagan tahay oo saas ay uga naxaso marka rago dulmiga naga daaya dhibaatada naga daaya ma fahanteen magama maarantaane haddana wanaajista hadda ka saas yeelay guriga markuu tago walaashiisa dharka u dhaqasa gabadh islaameed busoo dilay guriga markuu tago walaashiisa dharka u dhaqasa cunta la siinaya hooyadiisa lacag siinayso dhaas orod magaalada waxaan ku qabso haye gabadh kama maarantida oo guriga asaaska ku tahay way u diraysaa lugooyada naga dhaafa lugooyada naga daaya wallahi way idinku celinayna ilaa inta lugooyada naga deenaysan eragaas marka ragow saansi isku bedela saansi isku dhaamo qofka dishaan maanta wuuba dhintay ilaahay wuu hortay kulliba uu dhiman lahaa laakiin wallahi billahi adduunka waxaad la joogtaan magac xumo daragtihiin rag oo dhan ma dhahayo ragga inta xun ee maangaabiyaasha ah weeyaan rag weyna dhaleen weyna nala dhashteen ilaaha noo daayo laakiin inta aan caqliga lahayn nimba maaha ruuxii haween nacabu haystaaye nimba maaha ruuxii hablaha nabar u geysta qiirada iga heysiinaysa ee aniga inaa hees uguma talagelin ma fahanteen marka ilaahay subxaana watacaala xaqaha in tuso xaqaa ka duwan tihiin ilaahay xaqaha in tuso gabdhahan ilaaha xifdiyo meel kastoo joogaan adduunka ay ka joogaan kuleeyahay gabadhan taad ku dhigtay intaa dishay adaba kasoo tuurtay walaalkaana walaashaan ka wadaa beritoon midba intuu dilo daba kasoo tuuraya isla walaashaadii oo dhaxal dhibta u dhitaysay oo meel usii dhigtayna iyadana waa gabadh bari waa ka xumaanayna marka walaashaa dhaxal xun ha uga tegin gabadhaadana dhaxal xun ha uga tegin waxaan idin leeyahay ilaahay xaqa ha intuso asxaabay waxaan dhaho wallahi maha inka badan ma dhihi karo sababtoo ah aad baa uga qiiraysanahay gabadhan miskiinta ah ilaahay iyadana xaqeeda cadaaladda hor keeno adduunka uun baa rabnaa iyadu dhimatayba maanta xaq kasta iyo haddii la toogtana iyada waxba uma taraso kolleyba adduunku ay ka tagto kuma soo laabanayso maaha laakiin waxaa rabnaa in sharciga dadkan uu wax fiican ka qabto si beri aysan dembi kale u gelin shalay waa ogeen gaalkacyo gabadh yar oo sabi ah wixii lagu geystay halkan waa tana meel kastay ka dhacda gobolada Soomaalida inta la soo sheegay waxaa ka badan inta qarsoon sida xun loo dilo ee halka meel lagu wada dilay marka ilaahay xaqaha in tuso السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتبع إن السلام يا أصحابي حق إله نقول إن شاء الله.